برادر كالي هذا سوق المحل وحي كغلدان معناها تفكيرها صح يا صحيح مرحبا بدو الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسعته دمان أمد الصوماليات ميل والبقى جوجان أج مدحوينها دولة فدرالك الصومالية أج رئيس الوزراء دولة فدرالك الصومالية أج وزير كأرمها جودها يدبوشيسينتا الدولة فدرالك الصومالية أج وزير كهوينك حقوق الإنسان كدولة فدرالك الصومالية og gudoomiyaha ururka qaranka Soomaaliyeed gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed og hay'adda Amnesty International og hay'adda Human Rights Watch og dhammaan wakiilada beesha caalamka og safiirada USA UK EU IGAD AMISOM iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay og saxaafadda madaxa bannaan ujeedo kufsi iyo jirdil anigoo ah xildhibaan Cabduqaadir Ibraahim Cali xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland anigoo ku hadlaya magacayga matalaadayda iyo magaca jinaaxa mucaaradka baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland maanta oo ay taariikhdu tahay 23 Juun 2017 waxaan warmurtiyeedkan ku soo bandhigayaa dhacdooyin foolxumo badan oo taabanaya damiirka qof kasta oo aadana ah iyo qof kasta oo Soomaali ah dhacdooyinkaas oo ka dhacay degmada Kismaayo ayna geysteen xoogaga caburinta ee Jubbaland kuwaas oo ku hayb ah kana amar qaata Axmed Madoobe 27kii bishii 11aad 2016 qiyaastii 8 fiidnimo ayaa koox ciidan Jubbaland ah oo Axmed Madoobe reerkiisa ah oo wajiyadooda iyo magacyadooda la garanayo oo wato gaari tiknika ah kana kooban 11 nin waxay soo galeen guriga ay ku nooleed Muumino Isaaq Saleebaan xoog ay ku kaxaysteen waxayna dib ugu soo celiyeen waa berigii iyagoo kufsi wadareed u geystay gabadhaas Muumino Isaaq Saleebaan isla habeenkiiba waxay qaaday uur maantana waa 7 bilood oo xaamilo ah waxayna ku sugan tahay magaalada Muqdisho oo ay soo gaartay maalmo ka hor muddadaas 7 bilood ah Muumino waxay daba joogtay hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka Jubbaland kuwaas oo haba yaraatee aanan wax u qaban maadaama laamaha garsoorka ciidamada wax kufsaday iyo madaxweynaha ay isku beel yihiin waxa Muumino loogu hanjabay haday kiiskan ka hari weyso in ayadu la dilayo 10kii bishii 10aad 2016 qiyaastii 7 iyo barkii habeenimo ama halkii muxuu ahaay 7 saac bar oo habeenimo Yusuf Muumin Saleebaan oo la ilmo adeer ah gabadha haddan aan soo sheegnay oo ku sugan hooygiisa magaalada Kismaayo waxa darbiyada uga soo daatay xoogaga caburinta ee Jubbaland markiiba waxay bilaabeen handadaad argagaxin iyo jirdil waxayna ka kaxaysteen gurigiisa Yusuf waxa loogu haystay oo uu ku xirnaa guri aan la garanayn oo ku yaala magaalada Kismaayo muddo ku dhow sanad waxaana muddadaas uu afduubnaa loo geystay jirdil arxan darro oo noocyo badan leh sidaa darteed dhammaan ummadda Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed mas'uuliyiinta Soomaaliyeed beesha caalamka u jooga Soomaaliya diblomaasiyiinta iyo hay'adaha xuquuqul insaanka
ee ay arrintaanu qusayso waxaan ka codsanayaa in gabadhan iyo wiilkan ilmo adeerada ah anigoona aan ahay xildhibaankoodii matalayay ee dhibaatada xooggan loo geystay ay nagu taageeraan sidii aynu ugu heli lahayn garsoor caadil ah oo xuquuqdooda u soo dhiciya kuwii dhibaatadan u geystayna loo soo qaban lahaa loona marin lahaa cadaaladda fiiro gaar ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan si naxariis ah uga codsanayaa ugana dalbanayaa inay gargaar isla garab istaagaan gabadha walaashood ah ee dhibaatada intaas la eg loo geystay in ay damiirkoodii iyo dadnimadoodii kiciyaan oo ay dareemaan maanta gabar yar ee deegaankii ay ku dhalatay ku soo barbaartay ku waxbaratay intaas kula soo ekaatay gaboodfal intaas la eg loogu geystay ayadoo adigoo aad dareemayo in aysan ku noolaan karin meeshaas ayada ah heer intaas la eg loogu geystay dhibaato in qof walba oo muslima oo Soomaali ah meel walba uu ku nool yahay oo arrinkaas 2 daqiiqo indhaha intuu iskaga qabto fiiriyo oo tixgeliyo haddii ay ku dhici lahayd asaga walaashii ama walaalkii gabadha uu qabo ama gabadha asaga uu qabo ama hooyadii bal wuxuu dareemi lahaa maanta muumino waxay taagan tahay xaaladaas ayada ah waxayna u baahan tahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed inay garab istaagaan oo ay arrinkeeda u istaagaan raggii dhibaatadaas geystayna cadaaladda loo mariyo ayadana sida ugu dhaqsiya badan loo garab istaago magaca gabadha waa Muumino Isaaq Saleebaan oo telefoonkoodu yahay 25261617 magaca wiilka waa Yuusuf Muumin Saleebaan telefoonkiisu yahay 2562596946 intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan wax yar idin dulmaro waxyaabaha halkaas ka taagan oo aan indhaha laga qabsan karin annagoo ka hadalnay dhibaatada intaas la eg in deegaankii ay ka jirto oo aan tilmaannay in kufsiga iyo dhaca iyo boobka iyo dilka ay halkaas ka tahay wax aanan loo meel degin cidna aan lagula xisaabtamin ayaa waxaan go'aansanay inaan la hadalno ummadda Soomaaliyeed una cadeeyno dadka halkaas ku nool inay dulma yihiin halka aan ka waramayno oo dhibaatada intaas la eg ee taalo oo gaboodfalladaas ay ka dhacaan waxa xusid mudan maanta magaalada Muqdisho maalmo ka hor in laga furay shir dib u heshiisiineed oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya iyo guud ahaan in lagu walaaleeyo beelaha Soomaaliyeed iyo deegaanada intaba waxa xusid mudan shirkaas asaga ah deegaanka gaboodfallada intaas la eg ay ka dhaceen waxa loo soo dirsaday oo matalayay 12 oday oo hal beel ka soo jeeda waana beesha madaxweynaha uu ka dhashay aaway dadkii meeshaas ku noolaa oo dhibaatada intaas la eg loo geysanayay oo dhibka qabay ma waxa la heshiisiinayay madaxweynaha beeshiisa oo kaliya ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka heshiisiin u qabatay mise deegaanadaas dadkii ku nool su'aashaas waxaan jeclaan lahaa in guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee wasaaradda arrimaha gudaha ay wax ka weydiiyaan haddii deegaankaas 12 qof ee matalayay ee dhibaatadana ka jirtay annagu aan tilmaannay hal jifo uu u soo dirsaday madaxweynaha halkaas waxa ka cadeyn rasmi ahna oo ah dawladda federaalka in meeshaas wax la daboolayay wixii la daboolayay annaga aan daaha ka qaadno waxaan rabnaa in ummadda Soomaaliyeed ay si fiican u daraaseeyaan ogaadaan halkaas waxa ka jiro biidnillaahi tacaala waxaad arki doontaan sida ugu dhaqsiyaha badan in ummadii oo dhan ay halkaas istaagto dulmigana ay muxuu ahaay ka wada hadlaan cabirinta lagu haayana ee noqoto in ayagu ay gacmaha inta iska qabsadaan si dhab ahna u wajahaan assalaamu calaykum waraxmatullaah sidee wax u dhaceen sidoo xaalku marka hore sidoo wax ku bilowdeen nooga sheekay sidee wax u dhaceen يا sidee wax u dhaceen marka hore sidee wax u dhaceen أنا عيد كوي الباي حوي روقات هذا يا تقبل ما هذا الكلام هاي حلال ما حلال عفاد بقول فطور في مدو جوي
ciidan kooyal baa i xooge kooyal buuxo ciidan ay xooge markuu i xooge ciidanka hadda waa la garanayaa agteena uu marayaa maalin kasta maxaa qaban kartaa wuu leeyahay 24 saac axmedoowe ciidankiisa ay xooge ilaa ay haddana wax iga qabtay ma lahan meel kasta waan tagay wax ilaa ay hadda wax hay'ad kasta waan tagay ciidan kasta waan u tagay wax iga qabtay ma lahan maxaa lagu cadeyn karaa dadka ku xoogay in ciidan ay ahaayeen maxaa ku garanaysaa waan garanaa maxaa waa gartay ma la xiriirtay maamulka Kismaayo iyo wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland maxay ku dhaheen wax iga qabtay waa waaye waraaqada waatanaya maxay ku dhaheen ya maxay ku dhaheen waxba way qaw waayeen maxay dhahayaan haye hadda maxaad ugu baaqayeen madaxda dawladda ya madaxda dawladda maxaad leeyahay inay wax iga qabtaan rabaa cadaaladda waa gartay هذا ما تنتهي waa dhamaada maayna